sida gobolada kale ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland basaaka looga dareeray ayaa waxaa degmada Saylac saaka waa berigii dadweynaha reer Saylac iska soo xaadiriyeen goobaha codbixinta ee degmada Saylac manaan kamida codbixiyaasha ayaa magaalada Looyacado codkooga saaka si habsami ah uga dhiibanayay iyagoo dooranaya madaxweynihii shanaad ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland safiirka u fadhiya Soomaaliland dalka Djibouti ambassador Cabdifataax Siciid Axmed oo weheliye barasaabka gobolka Salal Axmed Naasir Maxamed Caashi ayaa wasiirka hore wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Siciid Faahiye ayaa soo kormeeray goobaha codbixintu ay ka socoto kormeerkaasi kadib waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka hore wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Cabdi Siciid Faahiye danjiraha dalka Soomaaliland u fadhiya Djibouti ambassador Cabdifataax Siciid Axmed iyo barasaabka gobolka Salal Mudane Axmed Naasir Maxamed Caashi logistic baahay alxamdulillah marka waxaan rajaynaynaa codeyntaas si fiican ba u dhacday xaggan Salal gobolka aan iraaho guud ahaanba barasaabkuna kale uga dambeyn doona runtii waan barasaabkan ku soo dhaweynayaa gobolka Salal bismillaahir rahmaanir rahiim safiirka Jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Siciid Cabdi Siciid Faahiye marka hore waad salaamantihiin waan idin mahad celinayaa sida fiican ee nagu shaqeynay maanta saaka 6 subaxnimo ayaa halkan waxaa ka bilaabatay codbixinta goobtan iskuulkan Looyacado imkaan taaganahay intii kale gobolka ee aan ku soo kormeernayna sida halkan oo kale ay si fiican uga socotaa dadku si fiican bay u codeynayaan kulli gobolada kale waan ka duwanahay waa xeeb kuleyl bay dadku dareemayaan runtii waa dad aad u askaysi badan waana u dhowr adeegeen iyaga laftoodana waan mahad celinayaa dhammaan Soomaaliland Jamhuuriyadda Soomaaliland dadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee codeynaya iyagana waan mahad celinayaa si nabadgelyo ah ay noogu bilaabantay waxaan rajaynayaa inay si nabadgelyo ku dhamaan doonto ilaa imkana si fiican bay u socotaa waana xaaladuna way fiicantahay intaasi kadib waxay mas'uuliyiintani u boqoleen dhinaca magaalada Saylac iyagoo soo kormeeray goobaha ay sidoo kale codbixintu ka socoto magaaladaasi Saylac Maxamed Cawaara Daahir oo Cable TV magaalada Saylac